بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دوميها كوميلغاركا golaha shacabka دوميها iyo guddiga doorashada ee qabanqaabada golaha shacabka xogeyaha guud habdhowraha golaha shacabka martida sharafta leh iyo bahda warbaahinta mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ayuub ismaaciil yuusuf waxaan ahay nin ku dhashay magaalada muqdisho nin waxbarashadiisa hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed ku qaatay magaalada muqdisho waxaan ahay nin muddo ka soo shaqaynayay hay-adaha dowladda ee kala duwan waxaan soo noqday sarkaal ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan sidoo kale diblomaasi ka ahaa mishinkeena dowladda Soomaaliya ee ku leedahay waddanka Sacuudi Carabiya waxaan 5 sano ee la soo dhaafay xubinka ahaa aqalka sare ama sanadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddigiisa arrimaha dibadda mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa marka hore inaan idinku hambaliyeeyo guushiina ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa sidoo kale inaan idinku hambaliyeeyo ilaahayna ka codsano inuu ajirkeeda iyo khayrkeeda siiyo anagoo ku jirna tobanka dambe ee bisha Ramadaan mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ay tahay maanta inaan hortiina soo istaago oo aan jeediyo khudbad aan uga hadlayo hadda ay doorataan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxa aan ka qaban doonaa golaha maanta waa maalin ahmiyad weyn u leh baarlamaanka qaranka ee Soomaaliya guud ahaan sababtoo ah waxaan dooranaynaa guddoonka hogaamin doona aqalka sharafta badan afarta sano ee soo socota kuwaas oo looga fadhiyo inay suurto geliyaan Soomaaliya horumar rasmi gaadha oo awood leh musharaxnimadeeda waxay salka ku haysaa rugni aasaasi u ah waan aaminsanahay in lagu horumarinayo dimuqraadiyadda dalka iyo dadka dalkeena mas'uuliyad weyn ayaa inaga saaran waa inaan matalaad dhab ah ku matalnaa shacabkeena isla markaana aan ka jawaabnaa baahiyaha anagoo la shaqeynayna laanta fulinta iyo beesha caalamka shaqadana hortaalla ma ahan mid fudud waana mid u baahnaan doonta hogaamin khibrad leh waxgal ah wadaniyad xambaarsan haddaad ii doorataan intaas waxaan aaminsanahay inaan ku sifaysanahay mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh maanta qarankeena dalkeena wuxuu waajahayaa caqabado waaweyn oo aan ka xusi karo xaaladda bini'aadanimo ee dalkeena ku sugan yahay amni darada sii kordhaysa shaqo la'aanta baahsan adeegyada dowladda ee hooseeya baarlamaanka 11aad waxaan rumaysanahay baarlamaanka 11aad haddaan iskaashi la samaysano arrimaha hortalinta leh iyo shuruucda dalkeena khibradda aan u leeyahay diblomaasiyadda iyo ka mid ahaanshaha aqalka sare waxaan ka soo bartay ahmiyadda ay leedahay inaan xaqiijino kobcinta hay-adaha dowladdeena si ay u shaqeeyaan si hufnaan leh sababtoo ah waxaa iskaabaya hay-adaha dowladda mana jirto hay-ad ka maaranta hay-adda kale haddaad ii doorataan waxaan kaalin weyn ka qaadan doonaa sidii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga qayb qaadan lahaa doorkiisa dastuuriga ah xeer dejinta dalka oo ay ku jirto ansixinta miisaaniyadda qaranka 2 la xisaabtanka xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dalka 3 dhamaystirka dib u eegista dastuurka ku-meelgaarka ah ee muddada dheer soo jiitamayay waxaan sidoo kale olole weyn u geli doonaa oo dadaal badan ku bixin doonaa in laamaha dowladda ay iskaashi buuxda yeeshaan si aan uga adeegno shacabkeena si ay istaahilaan sababta aan siyaasadda ugu jirno waa inaan noqonnaa u khidmeynta dadkeena mudane guddoomiye mudanayaal iyo xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka 11aad wuxuu nasiib u yeeshay inay ka mid noqdaan dhalinyaro wadaniyiin ah oo qiimo weyn ugu fadhiyo dalkooda sidaa daraaddeed haddaad ii doorataan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxaan ka faa'iideysan doonaa dhiigga
cusub iyo tamarta cusub ee ku soo biiray golahan waxaan si aan uga golaha shacabka si aan wax uga qabanno arrimaha ahamiyadda weyn u leh golaha shacabka Soomaaliya. madax bannaanida baarlamaanka waxay aasaas u tahay dowladnimadeenna iyo dimuqraadiyadda. haddaan noqdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, ku-xigeenka labaad waxaan har iyo habeen u taagnaan doonaa difaaca madax bannaanida kamara dhalinta. waxaan kaloo u taagnaan doonaa awoodsiinta xildhibaanada si ay codkooda ugu matalaan deegaanadii laga soo doortay, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in cod walba uu muhiim u yahay, cod walbana la maqli doono. intaas waxaa ii dheer waxaan si dhow ula shaqayn doonaa guddoonka golaha ee la doortay, anigoo kaaliya u noqon doona guddoomiyaha, kulana shaqayn doona si waafaqsan masaalixda golaha iyo danta qaranka. mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, waxaan mar kale ballan qaadayaa inaan xoojin doono iskaashiga oo golahani la leeyahay baarlamaanada kale ee caalamka si aan u yegelino xiriir sal adag leh kaas oo kusoo kordhin doona golahan kusoo kordhin kara dalkeenna iyo dadkeenna. gabagabadii, Soomaaliya waxay maraysaa waddo kala goys ah. sida keliya ee aan uga gudbi karno ugana dhaqaajin karno dalkeenna waa inaan xal u helnaa caqabadaha dhanka amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada, arrimaha dhaqaalaha oo hortabin u leh. waxaan marnaba looga fursan karin wax ka qabashada hoggaanka baarlamaanka oo leh geesinimo, xirfad, aragti, kuwaas oo wax walba ka horumarinaya danta shacabkii Soomaaliyeed. anigoo ah xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf, haddaad igu aamintaan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaa ku kalsoonaan kartaan inaan hoggaankaas ka soo bixi karo. mudanayaal iyo marwooyin, muddo 20 sano ku dhow dalkan wuxuu ku jiray doorashooyin dadban. waxaan rajaynayaa in haddaan mar kale jaanis u helo oo ii doorataan xubintaas guddoomiye ku-xigeenka labaad, inaan waqti badan iyo dadaal badan aan gelin doono in dalkan la gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah. waxaan mar kale si kalsooni ku jirto idinkaga codsanayaa inaad isiisaan codkiina. abwaankii oo daraskii iyo aragtida fogaa iyo afguriyaa wuxuu yidhi, maanta waa ayaan ididiilo badan, waana maalin adag. maanta waa maalin ayaan nin aqoon yar oo aqli gaaban oo na arooriyo wayna tahay ayaan nin ujeeddo fogi usha qaban karo. anigoo Ayuubana ididiilada uu Axmed sii arkayaa ii muuqanayso xilka maanta aan rabo. haddii daa'im igu simo golahuna ii doorto dowladnimo abiyoono, dhalin iyo kacaan, xamas iyo dacwaratiyo, Soomaali idiilkeed iska wada dhex aragto, dowlad aynu leenahay mar labaad abuurto amba qaadi doonaan isleeyahay. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullah.